soo dhawaada ardayda barnaamijkeennii tarbiyada islaamka waxaynu qaadanaynaa xisadan darsigii labaad ee ahaa cutubkii zakada. darsigii koobaad ee zakada waxaynu ku soo aragnay zakada tacriifkeeda ama mafhuumkeeda, mansiladeeda, xukunkeeda, shuruudeeda. darsigana caawa wuxuu ka bilaabanaa amaan kaga hadli doonaa zakaatu lancaam, zakada xoolaha. xoolaha sidee looga zokeeyaa, shuruuda ku waajibta zakadooda maxay tahay, xoolo se maxaa la yihahda, intaas ku arki doona darsigan caawa. الدرس الثاني زكاة الأنعام، زكاة حولها. أنعامتهم حيه. الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. صدح راس مركز اسكود على الاسكوير هذا الأنعام والإبل والبقر والغنم. صدح راس اسكود دركو هذا زكاة الأنعام. درس واحد وكذا دونا وصدح دقيقة. geela iyo lo-da iyo adhiga sida suurada kaga muuqato fiican fiir saddexdaas ayaa la yiraahdaa al-an'am. تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بأربعة شروط. زكاة waxay ku waajibtaa xoolaha afar sharti hadii la helo. afarta sharti hadii la helo zakadu way ku waajibtaa xoolaha. فما هي هذه الشروط؟ afarta sharti maxay؟ بلوغ النصاب، مضي الحول، الصوم، أن تكون غير عاملة. أفر شرط أمس وإن حولها نساب قارن نساب كهرب نصف السر، لكن عسان كوفر صوحا وعسي أنا كسو زيادي بوقوي. مقدار المال الذي تجب الزكاة فيه، نساب وحل إلى هذا وقدر كحوله مركا أي قارن زكاة أي كواجبس. هذين النساب ككيرهين حولها زكاة تكون واجبته. qodobka labaad waa mudiyul hawl. shartiga labaad ee looga baahan yahay xoolaha markay zakada ku waajibayso waa inuu sanadku u dhamaado. mudiyul hawl mari waxa lagu xisaabiyaa bisanati alqamari, sanadka dayaxa ama bisha ee lagu xisaabiyaa ee lama tirsada ka cadceed ah, way kala duwan yihiin labada sanad. sanadka inuu bilowga uu sanadku bilaabanayo xooluhu ay nisaab gaareen, waqtiga ay nisaabka gaareen ayaa la xisaabinayaa. taariikhda maalinteeda 12 bilood kadib haday nisaabku uu sidii noqdo zakada xoolaha waajib ku noqonaysa. shardiga saddexaad ee xoolaha looga baahan yahay zakada ay ku waajibayso wax weeyaan as-sawm. soomku waa maxay? waa inay foofta weyn oy banaanka u doonato daaqada. ay yakuna qidaa'uha 'ala ar-ra'yi min kala'in mubah, inuu noqdo qidaheedii waxay cunaysaa mid ay ka soo cuntay daaq banaan oo mubah. عرف بنان بسعونتي يدا أيا نفتي ذو راسيتي صنعونتي ونبات الأرض أرضها وحي كسو بحبي عنتي غير معلوفة لما علفيه مثل قوذية أو حلسية أو قعنت وحلقسية ماهي وميد يضو فوفتو بنان كنت يتكتو وحي عون له هذه قذي هذه سورستو أيا الصوم هذا هدي أي نمركها صائمة هي كور ومعلوفة وحريسان تهي علفية وحي عون السنة والله سيا يقود كذا يقذي ذا تهزككم واجب تمركز. أما إذا أعدت الأنعام للتجارة كورن هدي حولها لو دياريي جنعسي كان حوله بك جنعس هذا حوله لو فيها ما أنتوا يبيع برينا وسي بيها وسوي بسدا ونسي بيها سلوا جزكين يا أنعام تنوع عسكرة جيل لو فيها ما لو فيها ما لو فيها أو كجنعس هذا هدو تجارة درت أدياريي فإنها تزكى باعتبارها عروض تجارة. وحلوغ الزكاة إيضا أو اعتبارنا ينتهي عروض التجارة كنعس يبقى عهان بلوغ الزكاة يا اللوغ ما الزكاة كالأنعام ولو كانت تعرف هباها تمد علفية أو لقوذية تحسن. الزكاة عروض التجارة مركنا مرن إن شاء الله ستأتي أيين وقاعدين دونها قاب كلوغ الزكاة عروض التجارة تحس ما تدرسين وكنت تعاون. شرطك أفراد لوجا بهي هي بهيمة الأنعام إن زكاة كوج بتوامحية أن تكون غير عاملة. زكاة حولها وإن يهين مذ شقين حولها وحلوقة بها مذ شقيسة مذ شقين حدي أي شقيسة أي عاملة حيواته هل كان كفير عصان كاركا. العاملة هي التي يستخدم صاحبها في حرث. عاملة ومد واستعمال قف كله
ancaamtan iska leh beerta ayuu kaga shaqaystaa beertiisa ayuu kaga shaqeeya xarthi waa beer wey aw saqyi lardi dhulka ayuu ku waraabiyaa oo ardaduu ku waraabiyaa beer hadduu leeyahay ama geed leeyahay uu ku waraabiyaa uu ku shaqeeya aw naqli lmataac wuxuu ku qaadaa alaabta aw xamli alathqaal alaabtuu saartaa macnaa culays buu saartaa waa geeli oo kale wey tan noocaasoo kale ahana zakadu kuma waajibta ee shaqaysa oo an takuuna hayra caamila waa sharti muhim inaad fahanto weyn zakadu xoolahani waa inay yihiin xoolo aan lagu shaqaysanin oo wax soo saarin haddii ay shaqaysa waxa ay shaqaysaa ayaan eegi doonaa in wax soo saarkeedu zaka gaadhi inuu gaadhi karo afartaa sharti haddii laga helo ayay ku waajibtaa zakadu bahiimatu lancaam waynu usoo naqaanay alibil walbaqar walghanam qodobka ku xiga inuu gudano وبيان نصاب بهيمة الأنعام في الجداول التالية جدول كان صوص صعدا آد وفيرنا مهم بويا درس يعني حول ليدا تذكر حول النقطة ولي خاصة حولها قول إله يحسين أنسبة الإبل ومقدار ما يجب في كل نصاب أنسبة وجمع نصاب نصاب نوع صوشين حين هو قدر كم كي حوله قارن زكاة ويكون واجبته مركا وحين عدينا جيل جيله nisaabkiisa ayaanu cadaynaynaa waxaa kaloo aynu cadayna jadwal ku cadaynaynaa qadarka nisaab kasta ku waajibahaya waxaad xagga hore ka fiirinaysaa nisaabka geela ee ugu horeeya cadadka geela xagga jadwalka saddexaadna waa maa yajibu fiih halkaa u fiirso waa nisaabkii iyo cadadkii geela iyo wixii ku waajibahayay la bixinaya fuqarada la siinaya nisaabka koobaad ee geela waa maxay waa 5 neef markuu geelu gaarayo zakada ugu horeysa ku waajibta idan macnaha 5 wixii ka yaree geela zaka kuma waajibto laakiin waa maxay waxa ku waajiba waa shaato neef ida aha ku waajiba lax ba ku waajibaysa sabeen ama laxde laakiin waa 5 ilaa 9 5 ilaa 9 bay ku waajibaysaa laxda ma neef kale inta u dhaxaysa 5 ilaa 9 cadadka u dhaxaya waqsi baa la yiraahdaa isagu raacaya wax gaar ah lama siinay nisaabka labaad ee geelu waa maxay waa 10 markuu gaadho cadadka geelu wuxuu gaaray 10 ilaa 14 waxaa ku waajibaya 2 neef oo ida ah shaatani waa 2 laxaad weey 2 lax baa ku waajibaysa nisaabka saddexaad ee geelu waa maxay waa 15 fiirso isku xigaan cadaadu 14 waxaa ku xigta 15 ilaa 19 waxaa ku waajibtaa 3 shiyaahin 3 ida ah ayaa ku waajibaysa nisaabkiisa afraad ee geelu waa maxay waa 20 ilaa 24 sagayto wuxuu ku xigu firsa cadad ahaan waa 24 20 ilaa 24 afwan waxaa ku waajibtaa 4 shiyaahin 4 ida ah ayaa ku waajibaysa intaasi waa nisaabka qaybtiisa koobaad ansibada geela waxa waajibahayayna dhammaan waa ari waa shaata waahida shaataan 3 shiyaahin 4 shiyaahin shaatada koobaad ama daani ahaato ama maczi ahaato laakiin mid walba waxa labadaba way gudi karaan idaha iyo riyaha labadaba lagu bixin karaa qaybta labaad ee jadwalka u fiirso waxa ka waajibahaya nisaabka khaamis aan ku oranayna xagga cadadka marka iska raacino tiradu waxay ka bilaabataa geela 25 wuxuuna gaaraa 35 25 ilaa 35 geela inta u dhaxaysa cadadka waxa ku waajibaya neef geela magaciisa waxa la yiraahdaa ku waajibaya bintu makhad maxay tahay ما لها سنة هل سنة بيجرتها سنة كاملة أي جرتها سنة كلا بعضنا ويجا شيء قالين جيلها وسنة جيرها سنة كلا بعضنا وذا شيء أيالي هذا بنت مخاض مصطلح بنت مخاض معناه محي هو يبدأ ذي اللبات فول أهويا أو ليس أو رمان ونصابك لبعض جيلهان رقم كواجبها يوجلي هي عددهان السادسها وصدن اللح أما لحية صدن مكبلة لحية صدن جيلو مركو جارة إلى 45 وحكوا واجبة بنت لابون إنه هو يعاني لي ومعنى ذا ما حي هو يبدأ ذي اللباط للشيء والله مالاوي وما هي ما لها 2 ودخلت في 3 لباط سنة يا ولا ما يسترمي بنت لابونت سنة كي سدحنا ويجو ذاك الشيء وحا واجبت مركز والنيف جيلها ولو ما قاعد بنت لابون السابع oo nisaabka toddobaad waa 46 ilaa 60 inta laga gaaray waxa waajibta xiqadu maxay tahay neef geelaha ama qaalin geel ah magaceeda la yiraahdo xiqa وهي ما لها 3 سنوات 3 سنة أي جرتها ودخلت في الرابعة كدرس
saddex sana u dhammaystirmay sanadkii afraadna way gashay xiqa mustalaxaasi muxuu yahay xiqa waa mustalax macnaha waxay mutaysatay inuu awrku abaahiyay mutaysatay yalatii istaxaqat uruuqa aljamali calayha baa la yidhaha الثامن معنيس waa maxay kow iyo lixdan geelu markuu gaadho cadad ahaan ilaa 75 waxaa ka waajibta qaalin magaceeda la yidhaahda jadaca mustalaxeeda jadaca waa mid ilka jebisay wey وهي ما لها 4 سنوات ودخلت في الخامسة 5 سنة ayaa u dhammaystirmay sanadkii shanaadna way bilowday sanadkii shanaad ku dhex jirta macnaha waa qaalin 5 jir ah intaa haddaynu ku yar celino jadwalka qaybtiisa labaad qaybta hore ari keliya ha waajibahay qaybta labaadna waxaa waajibtay neef geela waa bintu makhaad bintu labuun xiqa jadaca waa afartaa martabo jadwalka qaybtii saddexaad bal feeri waxaa waajibahaya 2 neef oo geela waa jadwal nisaabka sagaalaad wey waa 76 cadadka geelu markuu gaadho 76 ilaa 9 waxaa ka waajibta binta labuunin 2 qaalmood oo geela binta labuun rabaan usoo sheegnay waxayna yidhi sanadkii labaad baa u dhammaystirmay kii saddexaadna way gashay marka 2 qaalmood oo 3 jira ah ayaa ka waajibaya haddii nisaabka tobnaad ee geel waa maxay 190 ilaa 120 buu gaadhay geeli baa wuxuu marayaa 190 ilaa 120 waxaa ka waajibta 2 qaalmood oo ahaa magacooda la xiqataan xiqataan waa 2 afar jir weeye wadada geela uu ku rimi jiray bay gaadhay nisaabka 11aad wuxuu ka bilowdaa 120 waa 3 banaati labuun waxaa ka waajibaysa geelu hadduu gaadho 120 saddex qaalmood baa ka waajibaya oo ah 3 jira macnaha 2 sano oo dhammaystirmeen daadii sanadkii saddexaadna way bilaabeen waa 3 qaalmood markaa 3 jira ah saddexdaa jadwal ee geel oo fariisto jadwalka koobaad ari oo kaliya ka waajibaya jadwalka labaad neef geel oo kaliya waajibaya jadwalka saddexaadna 2 neef oo geel ah ayaa geela lagaga zakeynaya oo ka baxaya ardayga muhiim bay u tahay inuu xifdiyo saddexdaa jadwal sidii yihiin inuu xifdiyo bikulli jadwal inta hadii la dhaaf ka waran geel hadduu intaa ka sii bato ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة انت هادو جيرو كبطو waxaad u qaybsanaysaa 40 iyo 50 40 kii kasta ee geelaha waxa ka waajibaysa qaalin bintu labuun magaceeda bintu labuun aan soo sheegnay sanad saddexaad bay yaa u bilowday xiqadana waxay nidhi waa qaalin geelahu 4 jir ah sidaas ayaad u xisaabsanaysaa nisaabka geelu waa sidaas way geelaydu aad uga faa'iideystaa darsigan day ka akhrisan karaan buugay haday dhageysan karaan iyo haday daawanayaan intaba أي نوجدنا أنصبة البقر ومقدار ما يجب في كل نصاب قيبت لبعض أنصبة حولها واللؤذي نصاب كيدو إمسا أوه الرأي محاسة كواجبة هي قدر كلا جبحين هي مساكين تفقر ذا لسنة وامحي نصاب ككوباد اللؤذ ومركي صدن قادوي معناها الصدن وحي كير اللؤها وحبكم واجبت زكنا كما واجبين لكن مركي صدن قادا أي زكاة أبي لابنسا ما حكى بحية تبيع أو تبيعة ما لها سنة وحكى بحية ديبي هو يدي الراعي ضبص تبيع معناه هو يدي ضبص عوري كبحنوي أما التبيعة براع كبحيس تبيعنا ما لها سنة نقول بس سنة بوشرة تبيع معنا وسنة بوشرة سنة كلا نو باللعبة تبيعنا وسنة سكر وقارن يرى الله ويل ملء من كلا طبعا والديبي أما ويل بكواجبس نصاب كلا بعض اللوض ومحي و40 مركز اللوض كان معناها 30 إلى 39 وحكى واجبه وتبع ونصع وقصي بلا إلى ترى ولا حسب العدد وقصي أنا كيور مرة عنيا من البقر أفرت مرك اللوذ قاعده وحكى واجبه يسام مسنة معنا وقالين لوها أو الكتبس والله بس أنا أي أول ما يسترد ما لها سنتان لا بس أنا أي ما يسترد ثم يستقر النصاب في كل 60 من البقر نصاب كل وضع وحكوس قناة يا مركب قدام بيسا لحظاً كستا أو لغضة كمدها مكي سوكان في كل 30 تبيع وفي كل 40 سن معناها 60 مركي قاعدة واحد كبحين يسال لبا التبيع هذا 60 بقر اللي ضحي لبا التبيع بيكون واجبس لكن 70 هدي قاعدة محينا قريسا تبيع ومسنة 40 كستا واحد كبحين يسال مسنة 30 كستنا waxaad ka bixinaysaa tabiic
ونصابك لوضنا halkaas ay ka gudbeenaa oo aday 60 ba gaadhay wixii ka dambeeyay aynu gudubno ghanamkii ama ari أنصبة الغنم ومقدار ما يجب في كل نصاب أنصبة جمع نصاب هو كسر إلى صعوه وعصب كون قل نصاب كنا وقدر كي حلو مركز جارين زكاة يكون واجبس محل جاب حنا يا أرجع أنت بس كزكاة يا أرجع نصاب ككوبا ده أرجع وفرس و40 أفرتا مركز وجاري زكاة يكون واجبت إذا 39 وما أقلها وما دونها زكاة يكون واجبت 40 مركو قال معك واجبيس شاة واحدة لحك لي أكو واجبيس جذعة من الضاني بالوجي إذا الكتاب يسوء إذا أو ثنية من المعز جذعة من الضاني معناه ضوء معي واللحم بالوضع أو يربيل هذا أنا بهرسن ثنية من المعز نوع معي سنة كبيرة بقول حجرتها وعيسان يصبين أياك واجبيس وفي صدى وأفرتا إلى بقول إيا لبات ترى ذوك كلام حكي لا ممكن تاش بقول إيا كو إيا لبات مركب لا منسى عدد كلابات أما نصاب كلابات عليك boqol iyo 20 ilaa 200 waxa ka waajibaysa 2 neef oo ari ah shaataani baa ka waajibaysa nisaabka saddexaad ariga farso 201 ilaa 399 inta waxa ka waajibaysa oo laga bixinaya oo noqonaya miqdaarka ku waajibay ariga 3 neef oo ida ah ama 3 neef oo riya ama wala isku dari kara laakiin markasta waxa qiimo badan baleedahay ida أنت هدي ولا فكر أرس أفر بقول بوجاري 4 شيء أفر نف على كبح بقول كيف ونف ثم في كل 100 شاة بقول كستو أريها واحد كبح نيسا شات نف أريها كبح نيسا وهدو أريجو أفر بقول يوحي كبدا النقطة